بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. waxay ogeydeen inaan ka degay faraskii xisbiga wacid 3 bishii 11aad 2015 kadib markii aan arkay fashilkii xisbiga oo uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga waa Faysal Cali Waraabe. waxaan ahaa mucaarad adag. waxaan jeclahay inaan halkii ka sii wado mucaaradadii. waxaan u holaday inaan ku biiro xisbiga wadani. waxaan galay 9 bishii 2 2016 halkaas weyn baa liigu soo dhaweeyay aniguna waxaan islahaa waxaad xoojin doontaa xisbiga waanad ku biirin doontaa wixii saxitaana waxa ogtiin inaan muddo sanad ku dhoobo warbaahintii isweydiinayeen mowqifka aan ka qabo xisbiga maadaama aanan ka dhex muuqan shaashadihii xisbiga wadani haddaba maanta waxaan idin caddaynayaa sababii aan uga maqnaa shaashadda xisbigu inay ahayd saluugaan ka qaaday hannaanka maamul nidaamka ololaha hadafka xisbiga iyo hoggaamintiisaba sidaa darteed maanta oo sabtiya bisha 8aadna ay tahay 5/2017 waxaan ku qancay inaanan la sii socon karin xisbigii wadani waxaan ka caddaynayaa inaan ka baxay xisbiga wadani siyaasaddu maaha mid taagan waa mid mar walba u baahan qiimaynteeda iyo go'aan qaadashadeeda qaran hoggaamintiisu waxay u baahan tahay hadaf ay runtu hoggaaminayso hadaf ay daacadnimadu hagayso hadaf leh aragti iyo higsi fog hadaf ay ka reeban tahay danaysi shakhsi oo lagu danaysanayo xisbiga laguna gaarayo tartan waxaanu mahad celinayaa bulshadii aanu soo wada shaqaynay muddadii aan joogay xisbiga wadani bulshadii ku qanacsanayd hoggaaminteeda iyo taageerayaashaydii guud ahaan oo intooda badan ila qabeen saluugan waxaan leeyahay waa kaa go'aankaygii wixii tala ah ee danta caam ee Soomaaliland iyo tagaar ee gobolka Awdal waxaynu uga tashan doonaa dib haddii la yiraahdo ilaahay baa mahad leh Soomaaliland Allah dhowr. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.